كوينو معانا ما تدك ودن waxay leeyahay nolosha waan fahmi laanahay nolosha waxaan u fahmi laanahay waa maxay xiriirkii innakii ilaahay noo dhaxeeyay baa meesha ka baxay xiriirka haddaan hagaajisano nolosha adduunkan iyo aakhira ilaahay baa noo hagaajin ilaahay baa quraankiisa inoogu sheego yiri waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka baqay ilaahay ka cabsada umurtiisa oo dhan waxaan ka dhigaynaa fudayd من كانت الدنيا همه جعله الله الفقر بين عينيه وفرق الله شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له بالنبي يري قفك همجي سكدق الدنيا وحو كفكر يا والدنيا وحو كشغين يا والدنيا وحو كصيحنا يا والدنيا وحو كسوكع يا والدنيا وحو كهلا يا والدنيا وحو إيجا يا والدنيا قفك همجي سأدنيا وكدق أبو نبي يري أرميه سودان إلهي بري قلبه بككل الشيرين يا نولش الدنيا فقر باللبض إنه الله صار يا فقر ولي أنا كبحين باللبض إنه الله صار يا أرزاق قدنا أنت إلهي أقدر مويان إن كلام هلا برسول يري ومن كانت الآخرة همه نك هم يجي سكت يجيبوا نبي يقول آخره معناه يقول أم حي يعني ملك استوجوج إلهي بكك عبصونا يا صلاة ديبو إلى علينا يا صوم كيبو إلى علينا يا حقي دتك اسك ilaalinaya حقي جارك سو ilaalinaya حق دتك la nool yahay iska ilaalinaya dambigu yar ilaalinaya wanaaga ayuu ka shaqeynaya hamigiisu aakhiro amal aakhiradiisa ka dhaawacaya waa ka digtoon yahay amal aakhiradiisa badbaadinayana wuu dhiiran yahay qabanaya mar walba ninka hamigiisa ka dhigay buu nabigu aakhiro qalbigiisa ilaahay ka dhiga qani hodantinimada qalbiga ilaahay siiya qofku meesha uu ka noqdo ciidna waa qalbiga meesha qani ka noqdana waa halkee waa qalbiga lagu aan moodin hebel waa nin milyaneer warqadahan maaha waxa bin aadanka qalbigiisa qinada gelinaya qinada qalbiga waxa geliya waa markuu qalbigu jeesto ilaahay macrifadiisa iyo aakhirada weynigeeda hamigiisa ninka ka dhigay buu nabigu aakhiro qalbiga ilaahay hodantinimo uga buuxiya arrimihiisa oo dhan ilaahay baa isku soo ururiya adduunyaduna iyadoo dulaysan oo u san dulaysan ay hoostimaada rasuulku yiri adduunyadu muuminka way doondoonan harkaaga ma adu ku daba socda misaada daba socda ya saa ku daba socda har adduunyadu baa leeyahay qofka adduunyadu waa sida harka adduunyadu diintay la socotaa adduunyadu aakhiraday daba socotaa hadaa tiraahdo adduunyada ayaan u jeesan oo aakhiradii baa ka jeesan waxaad la mid tahay nin yiri harkayga ayaan soo qabanaya ma soo qaban karisid walam yaatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu ba nabigu ma helo qofka hamigiisa adduunyo ka dhiga ma helo buu nabigu yiri illa wixii ilaahay u qadaray ma wax kale ma helo marka adduunyadan ilaahay baa nagu dhex abuuray oo inagu dhex imtixaamaya marka adduunyada ka tagana diinteenu inama leh hada ogaada adduunyada ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso laakiin qalbiga ha gelin taajir noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay ka gelin dhakhtar noqo laakiin lacagtu qalbiga inay ka gelin mas'uul noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay ka gelin waxaad noqotaa bay yiraahdeen culimadu sida doonta waxa loo isticmaalaa bariga mise badda maxaa laga ilaaliyaa biyo inay galaan hadday doonta iyadoo badda maraysa oo rukaab iyo badeecan la saaray ay biyo galaan iyadii waxa saaranba way qarriqmi sooma qofka bini aadanka adduunka inuu ku noolaado ilaahay baa ugu talagalay inaad shaqaysataa ood wax barataa oo taajir noqotaa oo dhakhtar noqotaa oo injineer noqotaa oo caaqil noqotaa ilaahay baa kuugu talagalay noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay ka gelin hadday adduunyadu qalbiga ay ka gasho adiga waxa ku saaranba wadagiyo ugu dad badan ba maanta way dageen Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu maal qabeen booha ninka umada ugu khayr badan booha Abdurrahman bin Auf maal qabeen booha tobankii jannada loo bishaareeyna kamid booha Uthman bin Affan maal qabeen booha tobankii jannada loo bishaareeyna kamid booha Jarir bin Abdullah al-Bajali ogaas booha ajil saxaabada nabi Muhammad raga ugu qiimo badan booha saxaabada rasuulku
tujaar bay lahaayeen, cuqaal bay lahaayeen, shucaraa bay lahaayeen, dhakhtarray lahaayeen, umaraa bay lahaayeen, fuqaraa bay lahaayeen, mucallimiin bay lahaayeen, culamay lahaayeen, ogaasyay lahaayeen. laakiin marka la eego aakhirada iyo diinta xagga way ka wada sinaayeen iyagu. xagga way ka wada sinaayeen. kooga amiirka ilaa kooga ma'muurka si midaatay ilaahay uga wada baqayeen, si midaatay aakhirada ugu wada fikirayeen. cabsida ilaahay ay ka baqayaan iyo aakhirada ay ku xisaabtamayaan waxay u dhib yaraysay mataqaanaa in adduunka dusheeda xaqa ilaahayna iska ilaaliyaan, xuquuqda bini aadamkana iska ilaaliyaan, aakhirana ay tagaan iyagoo aan waxba lagu lahayn. abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu khilaafada islaamka markii loo dhiibay waa markuu nabigu adduunyada ka intiqaalay sallallahu alayhi wasallam. wuxuu ahaa bagaashluha dharka iyo badeecadu suuqa ku iibin jiraa la yidhi. alaabtiisii buu qaatoo degtuu saartay. cumar baa arkay ninkoo sii socda. kaale yaa abubakar ilaa ayna? wuxuu yidhi waan shaqo tegayaa oo taladii ummadoo dhan ba adiga madaxa lagaa saaray madhaleeli oo reerkayga ayaa ii bilin soo anuu ka mas-uul mayo ilaahay weydiin maayo. muslimiintoo dhan baa looga dhigay mas-uul madax, khaliifata rasuulillaah weeyaan. mas-uuliyaddaa uu qabtayna lacag baad ku qaadan, meesha ma soo dhigan isagu. innaka maanta ka warrama ninka markuu mas-uul laga dhigay dowladda ama xildhibaan loo dooranayo muxuu socdaa bay kula tahay? har muxuu socdaa? waa lacag fiican heshid, meelahana si fiican ha u jajabsatid. ila waa xildhibaankii baa la odhanaya oo loo bannayn meel walba. iyagu sidaa ma ahayn. mas-uuliyadda umay arkayn meesha ciyaalkooga ay ka biilinayaan. mas-uuliyadda waxay u arkayeen waa xilligii ummadda nebiga loo khidmaynayay, waa adeeg ummadeed, ummadday u adeegayaan. ilaahay ikhlaaska innakan hayna siiyo. abubakar uu yaabay, war ciyaalkaygan reerkaygina ma haleelaysid oo masaariiftoodii anaa ka mas-uule, anna kaa shuuraynaynay adu noqo, horta halkaa fadhiiso, ma haleelaysid haddii toole. waa la shuureeyey, waxaa loo shuureeyey maadaamuu 4 reer uu lahaa in baytalmaalka laga siiya masaariif reerkiisa ku filan, neef jeexi inuu u kala qaybiya maalin walba reerkiisa hilibkaas iyo raashin ku filan. 2 sano ee uu talada ummadda hayay iyo dhowrkii bilood tiisii markay timiday godka lagu riday abi bakr as-siddiq allaha raalli ka noqdee inankiisii cabdiraxmaan ibn abi bakar oo lacag sida ayaa baytalmaalkii yimiday. cabdiraxmaan bin cawf oo ahaa maaliyadda ninkii hayay ayuu yidhi lacagtan baytalmaalka ku celi. markaasuu yidhi adeer lacagta xaggeed ku wadaa jooji? wuxuu yidhi aabba allaha u naxariistay ayaa igula dardaarmoo yidhi hadday taydii noqoto maanta wax adduunyaa maanta anigu dhul baan ku lahay magaalada madiina, dhulkaa iibiya, lacagta ka soo baxda dhulka 2 sano iyo dhowrkii bilood ee talada ummadda aan hayay baytalmaalka lacag intaa la-eg baan ka qaadanoo masaariiftii weeyaane igaga celiya buu yidhi, intay nii soo hadhan ininku dhaxal u qaybtama buu yidhi. cabdiraxmaan bin cawf uu yaabay, war maxaad leedahay? aabbaa ku dardaarmay sidaas in lacagta lagu celiya halkee? baytalmaalka. oo siduu u qaatay waa masaariiftii ininku adu qorteen oo reerka siinaya 2 sannadood ayuu aabbahay qoranayay. dhulkii uu lahaa markaan iibinayna waxa uu nagula dardaarmay lacagta in halkayga lagaga celiyo baytalmaalka lagu celiyo. cumar bin khadaab baa loo keenay. cumar uu ooyey. abi bakr as-siddiq oo uu yidhi abubakar oo qabriga abubakar buu dul tegay. cumar wuxuu yidhi madaxda adiga dabadaa imanaysa wallaahi waa daaliso ku gaadhi mayna buu ka yidhi, waadna daalisay buu ka yidhi. sidaan u leenahay abubakar ugu dayda waadna daalisay buu yidhi. 2 sano iyo dhowrkii bilood uu talada ummadda hayay waa ninka yidhi igaga celiyay baytalmaalka intaas. xukaamta zamankeenna ka warrama. waxaasi maxaa keenay? waa alla ka baq. ilaahay bay ka cabsanayeen, aakhiraday ku xisaabtamayeen. markaasaa koogii madaxa ahaa xaqii ilaahayna waa ilaaliyey, xuquuqdii bini aadamkana saasuu iskaga ilaaliyey. koogii faqiirka ahaa xaqii ilaahayna isna uu iska ilaaliyey, xaqii dadkana uu iska ilaaliyey. waa koogii faqiirka ahaa.
سعيد بن الزيد رضي الله عنه إسلام باكسو أشكتوتي محاي كسو أشكتوتي دول آن لها أيو بيرتي سي كدر صديتي ولي بعيل كان أنا قالي يدو هدما لأقو ساقا اسكاله وبين أبو رشو عثمان بن عفان أمير المؤمنين تاو ياري سعيد وطبعا كي جنة اللو بشاريين كمدا سعيد بن زيد أبا الأعور بركاسولي والله قاسو دعوه يا سعيدو ويا قاسو دعوه سلام تابع قاسو دعوه دغدا وما حي قاسو دعوتي دول iyadu ay leedahay baad qaadatay bay la leeyahay oo macal ceelka iyada leh markaasuu ya amiir almu'miniin anu waxaan ka maqlay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam oo leh dul uu lahayn taaka dul uu lahayn ninka dulmi ku qaata buu nabigu yiri maalinka qiyaamaha waxa lagu cuquubayn doonaa todobada dhul inta silsilad loogu xidho ayaa qoorta loo gelino la oran doonaa jiido la kac lamana kici karayo maanu xadiiska nabi maxamed ka hayo ka maqlay may kula tahay xaq bini aadan inaan dulmi ku qaadan ilaahu hadday igu been abuuranaysa buu yiri indhaha ka qaad hadilin adoo indhaha ka qaada mooyaane halkaana ay sheegaysa ilaahu ku dil buu yiri dhulkii uga kacay ha qaadatay buu siya waa indha beesh dam markaasay oran jirtay way habaarkii saciid baa igu dhacay way habaarkii saciid bin zayd baa igu dhacay ayadoo indhalo dhulkii ay ku sheegatay isaga wareegayso indhala ay ceelkii ku dhacday ceelkii bay ku dhacday lagama soo saarin halkii ba qabrigeyga laga dhigo lagu aasay xaq bini aadan ku ciyaar ma ma anu nabi maxamed ka maqlay taaka in la ego dhul xaqanaas ninka gardarro ku qaata todobada dhul ba qiyaamaha qoorta loo geliyaa oo lagu yiraahdaa la kaco jiid lamana kici karabu nabigu ma jiidi karaayo maanu xadiiska nabi maxamed ka maqlay may kula tahay Uthman inaan dhul bini aadan aan xaqdarro kaga qaadan ilaahu hadday igu been abuuranaysay buu indhahana ka qaad halkaan ilaahu ku dil buu yiri waxaasi waa alla ka baq waxa bini aadanka xaqooga ka joojinaya waa maxay waa alla ka baq marka ilaahay ku xisaabtamaysa inuu ku arkaayo oo ku maqlaayo aakhira inay jirtana ay ku hortaalo xaq bini aadan inaad u badheedha ku dhiiran maysid laakiin goormo qofka bini aadanku ilaahayna uu dulmi ka galaa bini aadankana uu dulmi ka galaa waa markuu ilaahay iloobo aakhiradana uu khadka ka saaro سادرتي ولا ليال إلهي إنها نصر نقولنا توبتك إنه